Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaad ku soo dhowaataan janalka Aqoon Guud oo laba inta badan aanu kaga hadalno aqoonta guud tasniifkeeda kala duwan. Mowduuceena caawa waa boqorradii afarta ahaa ee dunida soo maray ee ugu ballaadhnaa maamul, maal iyo muruq, oo aanu u kala qaadi doonno laba qaybood oo kala ah hordhac iyo waa kuma boqorradaasi afarta ah. Qaybta koowaad, hordhac. Dunidan aynu maanta nool nahay dabagoosidkeedii waxaa soo maray boqorro iyo suldooyin ama xadaarado kala duwanaa, feker iyo ficil ama falsafad iyo fahan aqooneed ama muruq iyo maskax ama maal iyo maamul, laakiinse ay u kala dhexaysay qarniyo iyo muddooyin aad u dhaadheeraa oo Alle subxaanahu wa tacaala mooyaane aanay cid kale ka khidaabi karin. Haddaba mowduuceena caawa waxaynu soo qaadanaynaa boqorradii afarta ahaa ee ugu ballaadhnaa maamul, muruq, maskax iyo maal, suldooyinkii iyo xadaaradihii dunidan soo maray. Qaybta labaad, waa kuma boqorradaasi afarta ahi. Marka dib loo daraaseeyo sooyaalkii taariikheed ee dunidan soo maray, dhacdooyinkoodii ugu waaweynaa ee ugu saxiixsanaa, culimmada islaamku waxay tilmaamaan boqorradaasi afarta ah sida kitaabka tafsiirka Ibnu Jariir Dabari wuxuu leeyahay waxay kala ahaayeen labana muslimiin, labana gaalo. Labada muslimka ahi waxay ahaayeen Nebi Sulaymaan iyo Dulqarnayn, labada gaalada ahina Namruud iyo Nabuukhadnasar. Sidaasi haddaynu xikaayaadka boqorradaasi u kala horraysiino tasalsulkoodii taariikheed, waxay noqonayaan sidan. Boqorkii koowaad, Namruud. Nasabkiisa culimmada taariikhyahanka islaamku way isku khilaafeen, iyagoo u kala jabay saddex qaybood oo kala ah qolo tidhaahda Namruud binu Kancaan binu Kuush binu Xaam binu Nuux calayhi salaam, qolo tidhaahda Namruud binu Faalikh binu Caabir binu Shaalikh binu Arfakshad binu Saam binu Nuux calayhi salaam. Kitaabka Bidaayatu Wannihaaya ee Ibnu Kasiir ayaa wuxuu leeyahay isaguna Namruud binu Kancaan binu Kuush binu Saam binu Nuux calayhi salaam. Waxay culimmadu tilmaamaan saddexdaasi qowl ama qolo waxa ugu saxiixsan qowlka Ibnu Kasiir, laakiinse innagu waxaynu leenahay Allaahu aclam, innagoo ka gaabsanayna. Namruud waxaa la tilmaamaa dhulka uu ka talinayay ee uu boqorka ka ahaa wuxuu ahaa dhulkii Baabil ee xadaaradii Raafidiinta ee ka jirtay dalka Ciraaq. Waxaana la tilmaamaa Namruud suldadiisaasi inay jirtay 2050 ka hor taariikhda miilaadiga. Sidaasi markaynu soo koobno taariikhda Namruud, waxaa la yidhaahdaa wuxuu ahaa boqorkii koowaad ee dunida gashada koofiyadda dahabka ee taajka boqorrada. Haddaba waxay isweydiin mudan, sidee ku bilaabantay kibirkii iyo santaaggii Namruud? Culimmada taariikhdu waxay tilmaamaan Namruud markii hore wuxuu ahaa boqor jillaabta ama ugaadhsada xayawaanka. Kadibna habeen baa isagoo hurdaa ayaa wuxuu ku riyooday iyadoo samadu madoobaatay oo aanay wax iftiini ka jirin. Kadibna wuxuu u yeedhay kuhanadiisii ama faaliyaashiisii, kadibna waxay ugu jawaabeen, sanadkan aynu ku jirno waxaa dhalan doonaa wiil, kaasi oo kaala wareegi doona mulkiga iyo maamulka, adigana ku dili doona. Iyadoo laga bilaabo sanadkaasi oo dhan uu gowracay dhammaan wiilashii dhashay. Kadibna waxay noqotay boqorkii jillaabtaha xayawaanka ahaa inuu noqdo boqor jillaabta dhiigga dadka, haddana boqor jillaabta cibaadada dadka oo yidhaahda hallay caabudo oo hallay sujuudo.
culimada taariikhdu waxay tilmaamaan sanadkaasi inuu dhashay nebi ibraahim calayhi salaam, laakiinse alle subxaanahu wa tacaala ka indhasaabay gowricii namruud. kadibna nebi ibraahim markii uu weynaaday ee uu waxoogaa leekaaday, alle subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey xikmad iyo cilmi, isagoo kala gartay wixiisan iyo wixii aan samayn. kadibna waa kii aabbihii iyo ehelkiisii kula dooday sanamadii ay caabudi jireen, isagoo aakhirkiina burburiyey. kadibna isagiina lagu riday dabka aadka u weynaa, laakiinse alle subxaanahu wa tacaala ka badbaadiyey. kadibna culimada taariikhdu waxay tilmaamaan nebi ibraahim waxa uu yeedhay namruud, isagoo ka yaaban mucjisadiisii sida uu uga badbaaday dabkii. kadibna wuxuu la galay dood aad u dheerayd oo uu alle subxaanahu wa tacaala ka sheekaynayo, iyadoo doodii iyo xujadii uu helay nebi ibraahim calayhi salaam. isku soo wada duubo, maalin baa namruud isagoo u soo baxay dhoolatus aad u weyn oo kibraya, ayaa culimada taariikhdu yidhaahdaan alle subxaanahu wa tacaala ayaa wuxuu u soo diray jamaaco kaneeca, kadibna iyadoo cuntay ciidankiisii oo dhan oo lafa mooyaane aan kaga tegin wax hiliba jidhkoodii. laakiinse namruud isaga waxay ka gashay sanka, iyadoo maskaxdiisii cuntay ilaa uu dhintay. culimada taariikhdu waxay tilmaamaan namruud wuxuu suldada xukunka hayay 400 sano oo kibir iyo ilaahnimo uu sheegtay. sidoo kalena 400 sano ayay madaxa iyo maskaxda kaga jirtay kaneecadu, iyadoo kaarka kaneecadu uu ka jabi jiray marka kab iyo nabar lagaga dhufto madaxa, oo madaxii uu lahaa dadka ii foorariya oo ii sujuuda ayaa alle subxaanahu wa tacaala ka dulleeyey oo ka ciqaabay isagii. nataa'iju xikaayatu namruud. waxaynu ka faa'iideynaa xikaayada namruud mahmaahdii Soomaaliyeed ee ahayd wadiiqada yari wadiiqada weyn bay kugu ridaa. yacni namruud isagoo ahaa boqor jillaabta xayawaanka ayuu isu beddelay boqor jillaabta dhiigga dadka, oo ay ka bilaabantay fasiraaddii kuhanada ee riyadiisii, oo ay ku rideen shaki iyo warwar uu u warwaray mulkigiisii iyo maamulkiisii. haddana kadib uu noqday boqor jillaabta cibaadada dadka ilaa uu gaadhay heer uu ilaahnimo sheegto. sidoo kale waxaynu ka faa'iideynaa mahmaahdii Soomaaliyeed ee ahayd abaal weliba abaalkiisuu leeyahay. yacni 400 sano oo uu lahaa dadka madaxa ii foorariya oo ii sujuuda ayaa loogu beddelay 400 sano oo isagii laga ciqaabay madaxii oo laga dulleeyey. boqorkii labaad, dulqarnayn. nasabkiisa iyo cidda uu ka soo jeedo culimmadu way isku khilaafsan yihiin, iyagoo u kala jabay qaybo fara badan oo kala duwan, laakiinse 3 baa ugu cadcad oo kala ah: qolo tidhaahda wuxuu ka soo jeedaa reer bani Israa'iil, qolo tidhaahda wuxuu ka soo jeedaa carab, gaar ahaan ximyar degmada la dhaho ee dalka Yaman, iyo qolo tidhaahda wuxuu ahaa Miqdooniya ama Gariig oo magaciisa wuxuu ahaa al-Iskandarul Akbar. markaasi waxaynu ku gaabsanaynaa oo culimmadu leeyihiin waxa raajix badan in lagu dhaafo Allahu aclam subxaanahu wa tacaala. sidoo kalena tacriifka magaciisa dulqarnayn culimada taariikhyahanku way isku khilaafsan yihiin, waxaana ka mid a khilaafkooda qaar yidhaahdaa dulqarnayn waxa loogu bixiyey waa labadii daraf ee galbeed iyo bari ee uu safarka ku gaalaa bixiyey. dulqarnayn waxa loogu bixiyey wuxuu socday habeen iyo maalin. dulqarnayn waxa loogu bixiyey wuxuu ahaa boqorkii Furus iyo Rum. dulqarnayn waxa loogu bixiyey wuxuu ku riyooday habeen isagoo cirka gaadhay, kadibna qabtay geeska qorraxda
oo uu soo taabtay. Dulqarnayn waxa loogu bixiyey waxa weeye qoomkiisii ayaa ka garaacay labadiisa gees. Isku soo wada duubo waxaasi oo magaca iyo qaar kale oo badan waxaynu ku dhaafaynaa Allahu aclam, oo waxaynu ku ekaanaynaa Dulqarnayn oo qura. Waayo waxa yeelay sababta magacu ugu baxay Qur'aanka iyo sunnuhu kamay waramin. Sidaasi waa inaynu iskaga aamusnaa oo ka gaabsanaa. Dulqarnayn waxa lagu sifeeyaa inuu ahaa qof ku sifoobay cadaalad badnaan, cibaado badnaan, sulxi badnaan iyo saalix badnaan. Haddaba xikaayaadka Dulqarnayn intooda badan waa Israa'iiliyaad iyo buunbuunin ama been abuurad, ilaa inta Qur'aanka iyo sunnada saxiixa lagu sheegay mooyaane. Waxay culimada taariikhyahanadu soo naqliyaan wuxuu Dulqarnayn ku gaalabixiyey safar dacallada dunida, iyadoo safarkiisaasi uu ku qaatay 500 sano muddo ku dhow. Waana kii Alle subxaanahu wa tacaala lahaa suuratu Al-Kahfi aayaadka 83 ilaa 98. Aayaadkani waxay tilmaamayaan safarkiisii oo Alle subxaanahu wa tacaala ka soo qaatay oo qura 3 socdaal, oo ka koobaad uu ahaa safarkii uu ku tegay qorrax u dhaca ilaa uu kala kulmay il ay biyo ka soo butaacayaan ama haro biyo ah, oo weliba meesha waxa ku nool dad gaalo ah. Kadibna uu ku yidhi, waxaad kala doorataan 2 arrimood oo kala ah inaan idin cadaabo oo idin laayo, iyo inaad i raacdaan oo Alle subxaanahu wa tacaala rumaysaan. Safarkii labaad oo uu haddana ku tegay qorrax ka soo bax ama bari ilaa uu kala kulmay qoom aan loo yeelin wax sutra ah ama xijaaba. Culimada tafsiirkuna waxay ku tafsiiraan, yacni qoomkaasi waxay ahaayeen dad aan loo yeelin hoy ay galaan oo guriya iyo hu ay xidhaan oo dhara, oo waxay ahaayeen dad subaxii oo dhan webiyada iyo harooyinka ku jira oo isku astura, habeenkiina ka soo baxa oo dhulka u foof taga, oo aad moodo sidii xayawaanka webiyada iyo harooyinka ku jira subaxii oo dhan, oo habeenkiina bannaanka u soo baxa. Safarkii saddexaad wuxuu ku tegay meel u dhaxaysa qorrax ka soo bax iyo qorrax u dhac, oo bartamaha dhulka ku taal, isagoo ugu tegay qoom ku hadlaya luuqad kakan ama adag oo uu fahmi waayey. Waxayna qoomkaasi ka codsadeen inuu u dhiso gidaar uu kaga xidho qoom wax fasahaadinaya oo la dhaho Juuj iyo Maajuuj, oo ka soo baxaya 2 buurood dhexdood, oo waxay arkaan u geysanaya dhac iyo boob, dil iyo dhaawac. Sidaasina wuu ka yeelay dhismihii gidaarka ee 2 buurood ee ay ka soo baxayeen Juuj iyo Maajuuj, isagoo ku guuleystay dhismihii gidaarka Dulqarnayn. Nataa'iju xikaayatu Dulqarnayn. Xikaayadan Dulqarnayn waxaynu ka faa'iidaynaa 2 arrimood oo kala ah. Arrinka koowaad, awoodda Alle subxaanahu wa tacaala, oo Alle subxaanahu wa tacaala inuu yahay mid awood weyn leh oo iska leh kownkan, oo ciduu doono siiyo cilmiga, mulkiga, maamulka. oo Alle subxaanahu wa tacaala waa kii lahaa suuratu Al-Cimraan
aayadda 26. yacni nebi maxamedow waxaad tidhaahdaa allahayow ee maamulka iyo mulkiga iska lahaayow, mulkiga kaa doontidna waad siisaa, kaa doontidna mulkiga waad ka siibtaa, kaa doontidna waad karaamaysaa, kaa doontidna waad dullaysaa. khayr oo dhammina wuxuu ku jiraa gacantaada, waxaadna tahay allow mid wax kasta awooda oo xumaan oo dhanna ka hufan. arrinka labaad, mahmaahdii carbeed waa tii lahayd asukuutu dahab, yacni aamusnaantu waa dahab oo kale. sidaasi waxaa jirta waxyaabo badan oo ku jira qisadan dulqarnayn oo haddana alle subxaanahu watacaala uu ka aamusay xikmad iyo wanaag inoogu jira awgeed, oo alle subxaanahu watacaala oo quri uu og yahay, sida safarkiisaasi wasaa-isha uu raacay, gaadiid, dadkii uu la kulmay, jinisyadoodii, iyo goobta uu ku yaallo gidaarka juuj iyo majuuj. sidoo kale alle subxaanahu watacaala wuxuu ka aamusay safarka dulqarnayn intii uu ku guda jiray ee uu dhulka dacalladiisa gaaf wareegayay, haykalka ama dhismaha dhulku noocu yahay ee uu ku soo arkay dulqarnayn, sida dhulku inuu fidsan yahay oo aan la gaadhi karin dacalladiisa, ama dhulku inuu wareegsan yahay oo sidii kubad oo kale uu yahay, iyo cadadka masaafadiisa ama muxiidkiisa, oo maanta qaar ka mid a culimada saynis yahanadu tilmaamaan haykalka dhulku inuu yahay sidii kubad oo kale. oo maxaad ku caddayni? waxaanu dirnay dayax-gacmeed, oo dayax-gacmeedku waa mid nooceeya? waa qalab tiknoolajiyadeed oo casrigan la gaadhay oo bani aadamku gacantiisa ku sameeyey. oo kale xataa markaad caqliyan la eego waxaad isbarbar dhigtaa keebaa run sheegaya, dulqarnayn oo ahaa makhluuq bani aadama oo khaaliq uu abuuray ama sameeyey, oo ku socday cilmiga khaaliqa, oo kusoo gaaf wareegayay dhulka, oo haddana alle subxaanahu watacaala kaagama waramin qiyaasta muunadda, muxiidka iyo masaafada dhulka ee uu ku soo arkay dulqarnayn. iyo dayax-gacmeed oo ah shay makhluuqa oo uu sameeyey bani aadam makhluuqii oo weliba gaal ahi, oo haddana kaaga waramaya haykalka ama muunadda, masaafada iyo muxiidka dhulka. kasoo gudub su-aashaasi, oo haddii ay noqoto qalab tiknoolajiyada, alle subxaanahu watacaala wuu awoodaa inuu siiyo bani aadamka oo uu ku ogaado haykalka dhulka. hayo wuu awoodaa alle subxaanahu watacaala, laakiinse oo kaley alle subxaanahu watacaala iyadaba miyaanu awoodin, oo muxuu siin waayey qalab tiknoolajiyada oo lagu arko gidaarka iyo goobta ay joogaan dhulka juuj iyo majuuj, iyo dajaal cawarba oo ka mid a bani aadamka alle subxaanahu watacaala abuuray, oo sidaynu hadda u noolnahay ugu dul nool dhulka guudkiisa. dee taasi juuj iyo majuuj iyo dajaal cawar waxay ka mid yihiin calaamadaha saacadda qiyaame, kuwooda u waaweyn, oo xilligooda markii la gaadho ayaa la arkayaa. laakiinse oo kaalay, haykalka dhulkuba miyaanu ka mid ahayn calaamadaha saacadda qiyaame kuwooda u waaweyn, oo inta dhulkan la laabo oo dhul kale miyaan la keenayn? dee maye, waa ka mid oo waa la keenayaa dhul kale. haddaba siday suuragal u tahay haykalka dhulkoo ka mid a calaamadaha saacadda qiyaame kuwooda u waaweyn waa la arkayaa hadda, iyo juuj iyo majuuj iyo dajaal cawar oo ka mid ah
iyaguna calaamadaha saacadda qiyaame kuwooda u waaweyn lama arkayo. Sidaas haddaba waxaa la isu waafajinayaa labadan su'aalood ee iskhilaafsan in loo daayo haykalka dhulka, Juuj iyo Maajuuj, iyo Dajaal Cawar. Intaba aragtidoodu waxay dhacaysaa calaamadaha saacadda qiyaame ee waaweyn markay dhacayaan, oo dhammaantood Alle Subxaanahu wa Tacaala inaga qariyay, sidoo kalena aanay kaga warramin rusushii iyo nebiyadii Alle Subxaanahu wa Tacaala uu soo diray. Sidoo kale, haddaynu inagu nahay ummad Islaam ah, waxaynu ku faanaynaa rasuulkeena Maxamed sallallahu calayhi wasallam meeluu gaadhay oo ah Sidratul Muntaha, oo uu khabarka Alle Subxaanahu wa Tacaala inooga soo qaaday sida salaada oo kale, oo ahaatay 7 samo dusheeda, oo aanay hore iyo dambaysaba u gaadhin makhluuq la midi. Laakiinse qolyahan gaaladu waxay ku faanayaan dayax-gacmeed makhluuqa oo xataa aan gaadhin samada koowaad, khabar iyo war uu u soo gudbiyay. Sidoo kalena dadka Islaamka ah hadafkooda ugu weyni waa janno oo ahaatay 7 samo dusheeda. Laakiinse qolyahan gaalada hadafkooda ugu weyni waa kicinta dayax-gacmeed oo 7 samo iska daayay aan gaadhin samada koowaad. Markaasi isku soo wada xooriyo labadaas faan iyo hadaf ee muslimka iyo gaalka keebaa sarreeya ama weyn. oo Allana Subxaanahu wa Tacaala waa kii lahaa suuratu Macaarij aayadaha 5, 6 iyo 7. Yacni Nebi Maxamedow sabir wanaagsan. Duulkan gaalada ahi dunidan waxay u arkaan meel dheer, annaguna waxaan u aragnaa meel gaaban oo inta beryo la joogo laga safrayo oo laga hayaamayo. Boqorkii 3aad, Nebi Suleymaan calayhi salaam. Nasabka Nebi Suleymaan wuxuu ka soo jeedaa reer Bani Israa'iil. Haddaba waxaa isweydiin mudan, sidee Nebi Suleymaan ku helay mulkiga iyo maamulka? Wuxuu ku helay 2 arrimood oo kala ah. Arrinka koowaad, wuxuu ku helay dhaxaltooyo uu ka dhaxlay aabihii Nebi Daa'uud, oo xilligaa mas'uul ka ahaa reer Bani Israa'iil. Arrinka labaad, wuxuu ku helay markii uu ku ducaystay ducadii ay tilmaamaysay aayadda 35aad ee suuradda Saad. Yacni wuxuu yidhi Nebi Suleymaan, Rabbiyow, ii dembi dhaaf oo waxaad i siisaa mulki aanad siinin cid ahaatay dabaday. Waxaadna tahay mid siin badan cid wax ku weydiisatay iyo cid aan waxba ku weydiisan. Sidaasi haddaba nimcooyinka Alle Subxaanahu wa Tacaala uu siiyey Nebi Suleymaan aad bay u badnaayeen, laakiinse haddaynu soo qaadanno qaar ka mida waxay ahaayeen sida nimcada nebinimada iyo boqornimada, nimcada cibaado badnaanta, nimcada mulkiga iyo maamulka qaar ka mida makhluuqa ku dul sugan oogada dhulka, sida bani aadamka, jinka iyo shaydaanka, buuraha, badaha, shimbiraha, xayawaanka, dabaysha, roobka, dhismayaasha qasriyada waaweyn, iyo soo saarista macdanta dhulka, iyo nimcooyin kale oo badan. Sidaasi haddaynu soo qaadanno qaar ka mida xikaayaadka Nebi Suleymaan ee ay ka warramayaan Qur'aanka iyo sunnada saxiixa ahi, waxaa ka mid ah sida xikaayadii fahanka, hadalkii quraanjada, xikaayadii hudhudka,
xikaayadii faylintii fardihiisa, xikaayadii u kala garqaadista labadii gabdhood, xikaayadii ka qarinta geeridiisa jinka iyo insiga. nataa'iju xikaayatu Sulaymaan calayhi salaam. waxaynu ka faa'iideynaa xikaayada nebi Sulaymaan calayhi salaam 3 arrimood oo kala ah awoodda Alle subxaanahu wa tacaala ee kownkan iyo inuu ciduu doono siiyo mulkiga iyo maamulka, inaanay jirin cid la siiyey mulkigii iyo maamulkii la siiyey nebi Sulaymaan oo kale taariikhda horeyso iyo dambeysaba. fadliga iyo darajada uu Alle subxaanahu wa tacaala uu gaadhsiinayo cidda rumaysa isaga ee qaadata amarkiisa ee wuxuu ka reebay ka reebtoonaata, wuxuu farayna qaadata oo raacda, iyo sidoo kale cidda qaadacda amarkiisa iyo rumayntiisa inay la kulmi doonto ciqaab iyo cadaab daran adduun iyo aakhiro. boqorkii afraad, Nabukhadnezzarkii labaad ama Bakhtirshaah. boqorkani Bakhtirshaah wuxuu leeyahay 2 magac oo kale oo la dhaho Bikhadnezzar oo macnihiisu yahay Saciidul Xaddi ama ninkii nasiibka wacnaa. Nabukhadnezzar kii labaad oo macnihiisu yahay Xaami al-Xuduud ama ilaaliyaha xuduudka. boqorkani wuxuu xukumi jiray boqortooyo la odhan jiray Baabil oo ka tirsanayd xadaarad la odhan jiray xadaaraddii Raafidiinta, taasi oo ka jirtay dalka Ciraaq kumanaan sano ka hor taariikhda miilaadiga. boqorkani wuxuu jiray siday taariikhyahanku sheegaan intii u dhaxaysay 634 ilaa 562 ka hor taariikhda miilaadiga. sidoo kale siday taariikhyahanku sheegaan intii u dhaxaysay 1103 ilaa 1126 ka hor taariikhda miilaadiga. waxaa isna jiray boqor labaad oo la odhan jiray Nabukhadnezzarkii koowaad oo isna boqor ka ahaa dhulka Baabil ee xadaaraddii Raafidiinta ee dalka Ciraaq. sidaasi haddaba markaynu soo koobno xikaayada boqorkani Nabukhadnezzarkii labaad, sida la sheego wuxuu dagaal aad u weyn la galay 2 imbaradooradood oo aad u awood weynaa oo dhinacyada ka xigay oo la kala odhan jiray imbaradooryadii Ashuuriyiinta iyo imbaradooryadii Faraacinada. isagoo labadaasi imbaradooradood ka guuleystay oo xilliga uu Faraacinada ka guuleystay waxa gacantiisa soo gashay Falastiin iyo Suuriya, oo Falastiin waxaa haysatay Yuhuudda, oo waxaana la sheegaa Yuhuudda xilligaasi sida uu u laayay cadaab iyo ciqaab loo soo diray Yuhuudda oo la dhaho badhna qoortuu jaray badhna wuu qafaashay. waxaana dadka qaarkood ay ku fasiraan suuratu Isra aayadaha 4, 5, 6, 7 iyo 8 ee Allah subxaanahu wa tacaala uu kaga warramayo reer bani Israa'iil. boqorkani Nabukhadnezzarkii labaad qaanuunkiisa waxaa la odhan jiray qaanuunu Xamuraabi ama qaanuunka qisaasta, oo ka hadlaya sharciga qisaasta sida qofkii qof dila in loo dilo. sidoo kale waxaa la yidhaahdaa wuxuu lahaa majlisu shuuraa ama gole wada tashi. sidoo kale waxqabadkiisii waxaa ka mid ahaa dhismaha magaalada Baabil iyo u samaynta 8 albaab oo uu ugu weyn yahay albaab la dhaho Baabu Ishtaar.
iyo dhismaha xadaa'iqu mucallaqa ama beeraha soo foorara oo ka mid ah 7 cajaa'ib ee hore ee dunida. Boqorkani dhinaca taariikhyahanada Islaamka khilaaf aad u weyn baa ka taagan dhinaca diintiisa oo qaarna yidhaahdaan Islaam buu ahaa, qaarna yidhaahdaan wuxuu ahaa boqor mushrika oo sanamada caabuda. Laakiinse inagu waxaynu ku dhaafaynaa Allahu aclam ama Alle subxaanahu watacaala ayaa u cilmi leh. Nataa'iju Nabukhadnezzarkii labaad. Waxaynu ka faa'iidaynaa xikaayada boqorkani 3 arrimood oo aad u waaweyn oo khusaysa dadka madaxda ah oo kala ah inaanad isdhiibin si kastoo lagu hareerayo ama lagaaga awood bato, oo 2 imbaradooradood ee waaweynaa ee hareeraha ka xigay waa kii ka guulaystay isagoo aan isdhiibin. Inaad lahaato qaanuun ama sharci aad dadka ku xukunto, iyo inaad lahaato gole shuro oo aad dadka kula tashatid. Mahmaahdii Soomaaliyeedna waa tii lahayd keligii tashade karaame ma laha. Inaad samayso waxqabad oo aad wax u qabato dadka, dalka iyo diinta. Waxqabadkaagaasi oo noqda dhaxalgal dadku kaa dhaxlo, sida dhismaha Baabu Cishtaar iyo xadiiqatu mucallaqa ee Nabukhadnezzarkii labaad oo kale.